Borussia Dortmund iyadoo ogsoon oo ah kuwaani qulubtooda ka bixin wixii kaga dhacay Baghdad Princess 4 sano ka hor ayaa ay markani tiri isu keena PSG ee hooygayguna waa kii Haruuda iyadoo ku qalabaysan habeenkii garbihii ay ka weyday Baghdad Princess waa jamaahiirta Haruuda caanka ku ay qaylada badan ayay derbigooda loo bineeyay kulanka PSG oo ku hubaysan Mbappe iyo Dembele oo la og yahay waxay afka hore ka sameeyaan ayaa loo dhistay derbi ka adag waxaasi oo dhan habeenada kale ka duwan oo isku hirdiyeen labadan kooxood Borussia qalbiga iyo qulubta waxay ku ogsoon tahay wixii kaga dhacay Baghdad Princess 4 sano ka hor go'ashadaasi iyadoo xasuusan Arsenal uu xalaal u yahay ayay hoosta uga xidhatay gidaarada ka soo go'aya la yiri weerarka ay ku faaneysay kooxda PSG Mbappe si kastaba yeel biraha garaac nooc kastaba samee hadduu dhaafiyo difaaca iyo gool haya birta ayaa ku ahayd cadowga kale ee ka hor istaagayay in uu gool ku dhasho habeen wax kastaba aynu aragnay ayay derbiyadii ay dhiseen kooxda Borussia ay ku guuleysteen championki karkar ayuu keenay sida halkan ka muuqataba Mbappe dhamac ayaa halkan ku shidan qiiqa ka baxayana waa ka Borussia afuufayso ay babiskiisa wado وهبين دمبلان ومهدين Mbappe warkiisa daa Marcos waraysi laga qaaday hal gool lagu baqtiyay kadibna derbigii dib loo sii dhisay derbiyeystaba yaala aduguba kale waa kana ka talaabso ayuu xaal ku ahaa inamadii PSG inamadii qasnadaha carbeed lagu dhaqaaleynay la doonayay inay koobahaan u soo sarifaan dhaqaalaha badan ee ku baxay khasaaru kurra khasaaru natiija khasaaru safriya ayaa xaalkoodu noqday sidaasi oo ay tahay loogama xishoon Francis déclame ses définitions j'espère saber de l'espifonwa أسبق de laisser biba فهمت علي شيء كل كلام يا أخي أنا استلتقنا كلن كهدوا Borussia Dortmund soo bandhigtay ciyaar qurux badan oo dhinac walba ay ka dheelitirantay goolka guusha uu ku hogaamiyay waxaana u saxeexay laacibka reer Germany ee Lucas Vogel oo ay qiimaha raqiiska xidigani ku heleen xagaagi la soo dhaafay haddase qiimihiisu waa cirka ciyaartan oo Paris Saint-Germain si adag u dagaalantay isla markaana laba jeer ay biraha garaaceen Ashraf Hakimi iyo Mbappe waa derbiyadii aan idin sheegayay ee la dhistay ayaa waxa dilay taatikada Dortmund oo ahayd inay si adag u xakameeyaan weeraryahanada halista badan ee Faransiiska ee afka hore ka dheelayay kuwaas oo ay duudeen inay si sahlan u galaan xiradooda ganaxa Dortmund nasiib ku diiday dhowr jeer oo ay goolka hortiisa ku badal la tageen isla markaana midii ugu halista badnayd uu lumiyay xidiga Sabitzer oo lugta la waayay kubad hortiisa taale ayaa waxa ay beegsan doontaa lugta labaad oo ay halgami doonto inay xoojisato shaqadii ay ku qabsatay qalcadeedan wada Haruuda macaaqaylada meesha ka baxaysa waxay ahayd mid Haruuda xidiga Sancho ayaa isla markii ciyaarta la bilaabay waxa uu kubad kala soo galay dhinaca midig waxa ay kaga dhacday goolhayaha Donnarumma oo ka difaacay wax yar kadibna Adeyemo ayaa nasiib ku diiday daqiiqadii 36 ayaa kubad xidiga Nico ka soo tuuray dhinaca bidix ee difaaca waxa uu difaaca weydaariyay Nicolas oo la galay xirada ganaxa isla markaana darbad xoogan lugta bidix kulli shaamay goolka oo shabaqa ku hubsada oo yiri dhalinaya carnaga daba kale hadda derbiyada jeeri karto ka adkin bir iyo dambaabad PSG ayaa waxa isku darsamay goolka laga dhaliyay iyo dhaawac soo gaaray difaaca reer France Hernandez oo waxyeelo ka soo gaadhay lugta bidix isagoo isku dayaya inuu joojiyo isla kubadda nasiibada markii lagu soo noqday qaybta labaad ayay PSG cadaadis badan saartay Borussia oo ay kubadda u diideen sidoo kalena ay weeraray istaba joog ah ku ekeeyeen daqiiqadii 51 ayay PSG laba jeer garaacday goolka Dortmund oo Hakimi iyo Mbappe isu daba mareen markii goolhayaha ay kubadda markastaba dhaafiyeen Birtuse ay tiri ana qulubina fi Germany fahamta ya kuriya kubadday waa ku fahansanay anigoo inaan ahay Jarmal waxaase ku soo laaday Faransiis sidaasi oo ay tahay j'espère tellement iska noqo ma galaysid shabagane waxaana laf dhun gashay isaguna ku ahaa goolhayaha kooxda Borussia Kobel oo kubadda badan gacmihiisa ganjeelka u adeegsaday Dortmund ayaa se kubaddeedu si quyar sare ugu soo kacday waxaana iska dulqaadeen cadaadiskii badnaa ee saarnaa iyagoo dhowr kubadood oo halis geliyay ku sameeyay kooxda dhamaadka ciyaarta oo ay 10 daqiiqadood ku harsan tahay ayaa kooxda PSG heshay fursadii ugu fiicnayd waxaana kubad xirada ganaxa ka helay Dembele waana idina u dhaweyn balse darbad xoogan oo goolka ku taagtay wadna garaacaya kashkashka haystay aawadii difaaciyadan maxaa la oran jiray qalbu difaacan meesha taagan ee aan sugaynin kubaddu xataa intii lugtiisa ku dhamaanaysay haraga ka diiranaya maryaha ka calaashanaya isagoo dhaawac ka cararaya ayuu siri darbad xoogba mad qabadsiisid samada ay gashay samada ayayna gasho waxay u tagtay taageerayaal iska xadraynayo
oo aan kursigaba si loogu fadhiisto aan aqoon 9 kaba taagan kuwii ayay kubaddi u tagtay daqiiqadii dheeraadka lagu daray ciyaarta ayay Borussia u dhawaatay inay keento goolka labaad laakiin ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-0 way Liverpool ku raacday Borussia lugta labaad ayay labada kooxood ciyaari doonaan salaasada soo socota waxaana halkaas lagu go'aamin doonaa midkooda u soo gudbaya ciyaarta ugu dambaysa ee finalka Borussia shaqada Jarmal gudihii ku qabatay Bagdis Princessna waxa looga baahan yahay oo kaliya xafidaad ujeedkeeduna waxa uu yahay in ay iminka yihiin kuwa aarsaday oo wixii Bagdis Princess kaga dhacay 2020 tartankii Champions League wareegii 16 way PSG intay ka badisay kadib taageerayaasha PSG kaba la dulmareen tii iyagu aksoon habeenka garoonkooda haruud bay ka soo dhigteen taageerayaashooduna waxay ahaayeen kuwa ay garab iyo wax walba ka heleen iminka Mbappe derbiyadii Borussia ka soo gooday dhinacna u dhaafi weyday Bagdis Princess hawl kale ayaa taala in kharashkii la sarifayay doonayaan carabtii PSG ku dhaqaale iyo kharash beelayba Borussia iyadoo sidan ay istareex ku tahay arsigu sidan oo kale ayuu habeenada qaar xalaal ku yahay championki dhamac baa ka baxaysa oo PSG waxa isleed sanadkan ilaa ayuu ku yaala balse noqon weyday aragnay Sancho wacdareynaya oo ciyaaryahanada kooxda PSG qaarkood magacyadooda weydiinaya waraysiga ka qaadayo le hore u sii socon laafiyoodkaaga arkay Erik ten Hag haye ma arkaysaa eragow no fraction bay haysta focus bay gaga jira ma arkayo waa waxyaabaha laga calaamadiyay kulankani inta aan kaga tagno championka aanu yardiga rogana midhiya laba xubnaheena kale Ronaldo Al Nassr hogaaminaya 2 gool kadib markii uu dhaliyay sidaana ugu soo saaray finalka koobka boqorka ee wadanka Sacuudiga way isku hurdiyi doonaan kooxda Al Hilal sidaana wuxuu ballan kaga qabsaday finalka kooxda Al Hilal oo Itixaad ka soo takhalustay iyaduna hore Ronaldo daadu waa lambar adeer anigu wili hadda dan garoonka galo waan dhaliya ayuu kaga dhigay habeenuu xadreeyay habeenuu damaashaaday habeenuu wacdareeyay kooxdana final geeyay xubintu waa kariskiya kala haadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike intaynu xubintan mid xigta ku kulmi doonaa inta ka horeysa saaxiibadaanu jecelahay taniye sarag maqalkeena dambe iyo nooli kulanto dambo xiisa leh waar isma dhaafnee falowda nagu cimaamad leeg nagu dhiirigeli aragtidaaduna waa muhiim inta ka horeysa sida ayaa maana Allah Smart Dental Clinic ku dhoola cadee $100 kaliya qiimo dhimis 40% ah Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay ku samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed adeegyada qiimo dhimista lagu sameeyana waxa kamid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo kaliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska inta aanad gaarin waxay ka soo